ku soo dhowaada barnaamijka idaacada caalamiga ah ee Gari Global Network Radio. War degdeg ah oo hadda naga soo gaaray degmada Mooyaale ee gobolka Daawa ee dawlad deegaanka Soomaaliya. Laba walaalo ah oo Soomaali ah ayaa lagu dilay agagaarka Mata Arbaxa bishii Maarso 2025. Waxaa la sheegay in dilkan uu la xiriiro habdhaqanka Oromada ee loo yaqaan nidaamka gada, kaasoo 8 sanoba mar la soo doorto hogaamiyaha beesha ee lagu magacaabo Abagada, waxaana la dilayay dadka aan deriska ahayn ee Oromada. 8 sano ee kasta oo ay dhacdo caadooyin, qof waa in la dilo si uu guulaysto. Badhasaabka gobolka Marsabit Maxamed Cali iyo madaxweynaha gobolka Oromada Shimaalis Cabdisa ayaa ka mid ahaa madaxda sarsare ee Oromada oo goobjoog ka ahaa munaasabad lagu dalacsiinayay dembiyada. Haddaba waxaa jirta warbixin sheegaysa in gudoomiyaha gobolka Marsabit Maxamed Cali uu ku dhiirigelinayay ka qaybgalayaasha dhaqanka inay u gutaan habdhaqankii awowayaashood si la mid ah sidii ay awowayaashood u dhaqmi jireen. Intaa waxaa dheer, Maxamed Cali wuxuu u sheegay martidii ka timid Negele in ay sameeyaan qorshe dhulbeereed oo ay la wareegaan tuulooyinka Soomaalida ee Oda Diima iyo Alooye si kasta oo loo baahdo. Marka waanu ku ogeysiin doonaa marka macluumaadka ugu dambeeya noo soo baxo.